habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada caawiya caalamka waa Cusmaan Cabdi Xasan qodobada wararkeena ugu waaweyn waxa ay kala yihiin laba qof ayaa lagu dilay gobolka Wisconsin intii lagu jiray habeen kale oo rabshado ka dhashay nin madow ay boolisku Mareykanku toogteen faahfaahin ayaynu idinkaga haynaa wararkeena kalena waxa kamid ah in meesha laga saara qaar kamid ah xuquuqda codaynta Mareykanka ee sida adag lagu helay eedo ayaa soo baxaya u arka cadaadis lagu hayo dadka madow ee Mareykanka xeerka warbaahinta ee oo ansixiyay madaxweynaha Soomaaliya 30kii Juulaay oo maanta la soo bandhigay xafiisyada ugu badan adduunka New York oo hadda maran waxaan dabalka ka qaadnay sida la isugu dayayo in shaqaalaha ay ugu soo laabtaan xafiisyada kala soco BBC News Somali Television-ka raadiyaha online-ka iyo bogagga bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka laba qof ayaa ku dhintay mid kalena si xun ay ugu dhaawacmay magaalada Kenosha ee Mareykanka intii ay socdeen rabshada hubaysan oo ka dhashay markii boolisku toogteen nin aan hubaysnayn oo madow Jacob Blake waa 29 jir haddana waa naafo kadib markii ay booliska dhabarka ka toogteen habeenkii saddexaad barnaamijyada ay isku dhaceen booliska iyadoo bandowga saaran Wisconsin si weyn la isaga indhatiray Jacob Blake hooyadiis ayaa ku baaqday in rabshadaha laga fogaado digniin muuqaalo naxdin la ayaa ku jira waxaana soo jeedinaya warbixintan Mawlid Xaaji Cabdi habeenkii saddexaad ayay rabshaduhu ka aloosan yihiin Kenosha kuwaasi oo ka dhashay toogashadii boolisku axadii ay geysteen iyadoo rabshaduhu ay si labaleexaasadeen mar kale qaar ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa beegsaday gawaari iyo guryo laakiin markan dad kale ayaa wadooyinka ugu soo baxay sida muuqata inay difaacaan hantidooda muuqaalka telefoonka gacanta ay ku jiraan sawirro naxdin leh ayaa qayb ka mid ah muujinaya nin qori dheer sita iyo dad kale oo cagaha wax ka dayaya natiijadiina qof dhaawac ah ayaa dhulka yaal dad ayaa isku dayaya inay caawiyaan booliis ku jira gaari u dhow ayaa ku dhawaaqaya inay imaanayaan si ay xaaladda ula wareegaan una caawiyaan waxaanay oo dhan waxay daba socdaan toogashadii boolisku axadii u geysteen Jacob Blake nin aan hubaysnayn oo iminka lixaad beelay isla markaasna qaba dhaawacyo badan qoyskiisu way murugoonayaan wayna caraysan yihiin waxay dalbanayaan cadaalad iyo sidoo kale boogdhayid wiilkayga 7 mar ayay toogteen 7 mar sidii inaanu qiimo lahayn laakiin wiilkayga qiimo ayuu lahaa waa bini aadan qiimo ayuuna leeyahay Jacob cadaalad heerkiisa u fala qalbiyadiinana eega waxaan u baahannahay inaan soo fayoobaano Kenosha magaalo yar oo ay ku nool yihiin qiyaastii 100,000 oo qof weligeed waxaanay oo kale hore uma soo marin wax badan ayaa u muuqda inay qatar ku jiraan dadka maxalliga ah iyo guud ahaan Mareykanka ayaa ku kala qaybsan xuquuqda iyo qaladaadka mudaharaadka marmarka qaar rabshadaha isku bedela waxaan u fahmayaa banaanbax in si nabad ah in loo banaanbaxo taasi waa wax wanaagsan laakiin ha burburin dhismayaasha ha jajabinin waxyaabaha dadka kale leeyihiin biliiliqo gubid nasiib darro qayb ayay ka tahay sidee dhisme loola barbar dhigayaa nolol mar labaad mudaharaadyada waxay ku sii fidayaan magaalooyin kale oo dareenka markii horeba uu aad u sareeyay kadib toogashooyin boolisku ay geysteen magaalooyin ay ka mid yihiin Portland, Oregon iyo Minneapolis ee gobolka Minnesota gobolka dariska la ah Wisconsin dhammaan dhaqdhaqaaqyadii ka dambeeyay Black Lives Matter iyo kala qaybsanaanta qowmiyadaha iyo takoorka ee Mareykanka ay hadda si aan horey loo arag shukaanta ugu haya doodo kala duwan oo dhinaca siyaasadda xilligan oo muhiim ay tahay doorashada madaxweynuhuna kaabiga ay soo hayso
haddaba si aan warar dheeraad ugu helno gobolka Wisconsin waxaa qadka toos ugu jira magaalada Milwaukee Cabdinaasir Maxamuud Cali oo ah ganacsade ku nool gobolkaas. Cabdinaasir, soo dhawow, xaaladda guud maxaa hadda u dambeeyay? walaal waa habeenkii saddexaad ay banaanbaxyo rabshado wata ay dhacayaan halkaas oo la sheegayo in dad isugu soo baxay magaalada Kenosha wadada la yiraahdo wadada 63 iyo wadada ay iska jarayaan Sheridan Road ayaa dad isugu soo baxay kadibna waxaa ka dhacday meeshaas 12 habeenimo xalay waqtiga Kenosha xabado ayaa ka dhacay halkaas oo laba qofood lagu dilay labadaas qofood mid kale lagu dhaawacay kan dhaawacana xaaladiisa aad iyo aad ay halis u tahay. waan gartay Cabdinaasir, marka dareenka dadka aad fiiriso waa sidee xaaladooda iyaga? xaaladda dadka dareenka Kenosha ku nool aad iyo aad ay u kacsan tahay. magaaladana bandow ayaa lagu soo rogay laga bilaabo 8 habeenimo oo 2 saac habeenimo ah ilaa waaga uu ka bariyo bandow ayaa la saaray inkastoo bandowgaasna weli uusan hirgelin ay rabshaduhuna socdaan. waa tahay ugu dambeyntii booliska iyo mas'uuliyiinta gobolka si loo dejiyo dhibaatadan maxay ka yiraahdeen? dhibaatadan waxay ka yiraahdeen in shacabka la dejiyo loo sheego meelaha ay isugu imaanayaan inay u soo dhawaanin xagga iyo saldhigyada booliska iyo maxkamadaha meelaha ay ku yaalaan iyadoo booliskana xirxiray meelaha ganacsiga sida dealer shopska meelaha baabuurta lagu gado waaweyn oo ayaan hore la gubay. marka dadkan waxay ugu baaqayaan in deganaan la muujiyo. waa mahadsan tahay Cabdinaasir, ayuu kaasi aqoon-yahan iyo ganacsade ku sugan magaalada Milwaukee. Cabdinaasir Maxamuud Cali, waa mahadsan tahay. adaa mudan walaal. weli wararka Mareykanka ayaynu ku guda jirnay. Jimcaha soo socda waa sanad guuradii dibadbaxyadii Washington ee 1963 ee hogaamiyihii bulshada ee Dr. Martin Luther King ka jeediyay khudbadii caanka ahayd ee ahayd I have a dream. 2 sano kadib sharciyada codaynta ayaa la ansixiyay kaasoo mamnuucaya takoorka ku salaysan cunsuriyadda ee la xiriira codaynta, balse qayb ka mid ah sharcigaasi ayaa xilligaasi kadib ay maxkamadda sare ka saartay, taas oo sababtay eedeymo ku aadan caburinta dadka madow ee codbixiyaasha ah. Laura Travelin ayaa warbixintan soo dirtay. Caaisha Afrax ayaa ka warmaysa. Alabama 1960meeyadii dadka madow ee doonayay inay codeeyaan waxaa garaaci jiray booliska. magaalada Selma bishii Maaj 1965 dad u dibadbaxayay xuquuqda bulshada waxaa weeraray ciidamada dawladda. muuqaaladaasi waxay argagaxiyeen qaranka iyagoo sababay in Congress-ku uu ansixiyo sharciga codaynta. waxaana lagu helay dadaalka Dr. Martin Luther King iyo dadka taabacsan. sharciga codaynta ee 1965 waxa loo arkaa inuu yahay mid ka mid ah sharciyada ugu muhiimsan xuquuqda rayidka. ka hor 1965 waxaa jiray takoor ku aadan codaynta, waxaa jiray caqabado sida imtixaano oo dadka madow ee Mareykanka hor istaagay. 2013 maxkamadda sare ayaa diiday wax ka beddelka sharciga xuquuqda codbixinta iyadoo ka doonaysay in gobolada koonfureed ay helaan ogolaansho heer federaal ah. waaxda cadaaladda ayaa ku dooday in wakhtigu isbedelay. John Lewis oo dhintay bishii hore ayaa hogaaminayay dibadbaxi ka dhacay magaalada Selma. waxay leeyihiin taariikhdu dib isuma soo celin karto, balse waxaan leeyahay kaalay oo booskayga gal. sharciga codaynta ee 1965 la ansixiyay kadib dibadbaxi ka dhacay Washington iyo dadaalada Dr. King ayaa waxay ahayd inuu dabar gooyo takoorka ku salaysan cunsuriyadda, balse qodobada qaar ee dadka badbaadin lahaa ayaa laga saaray. hadda Mareykanku wuxuu wajahayaa dhibaatooyin ku aadan cunsuriyadda xilli ay doorashada madaxweyne soo socoto. waxaa jira su'aalo ku aadan in cunsuriyadda la xiriirta codaynta wax laga qabtay iyo in kale. gobolladii bedeli waayay sharciga iyagoon ka haysan ogolaansho waaxda cadaaladda ayaa hadda isku dayaya inay dib u habeen ku sameeyaan ayaa leh waxay joojin doontaa in isdabamarin ay dhacdo xilliga codaynta. waxaa la arkayay waxyaabo badan oo lagaaga baahnaa oo ku adkaa qoysaska danyarta iyo dadka madowba inay ka soo baxaan. waxaa jiray waxyaabo badan sida codaynta horudhaca ah oo la joojiyo iyo in la xiro xarunta codaynta, weliba xarumaha codaynta ee ku yaala xaafadaha dadka madow.
in ka badan 50 sano kadib xilligii dibadbaxyadu dhaceen sharciyadii cunsuriga ahaa ee la xiriiray codbixinta oo ay ka dagaalameen hogaamiyayaasha rayidka si sax ah uma jiraan balse isbedeladan saameyn ma ku yeelan doonaan doorashada 2020ka dibadbaxyada ku aadan cunsurinimada ee socdana miyay horseedi doonaan in dadka madow ee Mareykanka ay si ka weyn doorashooyinkii hore ay u codeeyaan bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararkeena caawa Kenya ayaa sii dheereynaysa bandowga saarnaa dalka ee ka bilowda 9 fiidnimo ilaa iyo 4 subaxnimo 30 maalmood oo kale madaxweynaha Kenya wuxuu sheegay in uu fayraska ku faafayo meelaha baadiyaha ah baararka iyo kalabyada waa la xiri doonaa iyadoo tirada dadka ka qayb galaya aroosyada iyo aaskana la kordhin doono مسؤولينta Afghanistan ayaa sheegay in 60 ruux ay xilli habeen ah ku dhinteen daad magaalada Jarikar ee magaalada caasimadda Kabul u dhow roobab lixaad leh ayaa sababay daad ku dhuftay saddexdii habeenimo waqtiga Kabul boqolaal guri ayay waxyeello gaartay ama burburay howlgal samata bixin ah ayaana hadda lagu soo badbaadinayaa inay cid ka badbaaday barnaamij tijaabaha oo laga hirgeliyay Indonesia kaas oo lagu xakameynayo qandhada daangi ee laga qaado kaneecada ayaa keenay in jirada ay hoos u dhacdo bakteeriyada oo aan dhibaato lahayn ayaa bani aadanka aan waxbana u dhibaynin ayaa lagu talaalaya kaneecada saynisyahanada ayaa 75 in ka badan yareeyay boqolaal milyan ayaa sanad kasta ay ku dhacdaa cudurka daangi adduunka oo dhan mar walba nagala socon kartaan BBC Somali Facebook oo aad ka heli karto BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaalo falanqeyn dheeraad ah iyo wararkii ugu dambeeyay si aad u hesho wararkii caalamka wali waxaad daawanaysaan caawiya caalamkan idin xusuusiyo qodobada wararkeena ugu waaweyn laba qof ayaa lagu dilay gobolka Wisconsin intii lagu jiray habeen kale rabshado ka dhashay nin madoobay booliska Mareykanka toogteen in meesha laga saaray qaar ka mid ah xuquuqda codaynta Mareykanka ee sida adag lagu helay eedo ayaa soo baxay u arka cadaadis lagu hayo dadka madow ee Mareykanka jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ayaa waxa la filayaa in dhawaan uu u gudbo golaha guurtida xeerka kufsiga oo shalay ay ansixiyeen golaha wakiilada ururada bulshada oo haweenku ay hormuud ka yihiin ayaa dalbanaya in aan xeerka la dhaqan gelin maadaama ay salugsan yihiin qodobo ku jira sida uu ku soo waramayo wariyaha BBC-da magaalada Hargeysa Sadiiq Maxamed Burmad meel marinta xeerka kufsiga ayaa sida imaka oo kale muran abuurtay sanadkii 2018 laakiin haatan waxa isweydaartay qoliyihii waqtiga dabada ka waday ayaa ah kuwa imaka diidan halka kuwa imaka ogolina ay waqtiga hore diidanayeen qodobada waqtigaasi murankii markii uu ka dhashay kadib madaxweynaha ayaa guddi u saaray wax ka bedel lagu soo sameeyo kan haatan golaha wakiiladu ay meel mariyeen waa xeerkii cusbaa ee wax ka bedelka lagu sameeyay kufsiga qoliyaha imaka diidan oo u badan ururada bulshada iyo ururada haweenka iyo hay'adaha daneeya waxa ay sheegayaan in dhowr qodob aanay suuragal ahayn in bulshada lagu dhaqi karo kuwaasi oo ay ka mid yihiin in xeerkani uu jidaynayo gabadha soo dacwootada ah ee la kufsaday haddii kiisaskeedu ay caddaan waayaan in iyada laftigeeda la xukumayo iyadoo marka horeba caddaynta kufsigana laga dhigay inay 4 marag u baahan tahay taasi oo dumarkana ay leeyihiin waxay ku dhiiri gelinaysaa inaanay kuba soo dhicinba inay ciddii kufsatay ay soo dacweeyaan
qodobo kale ayaa jira waxaana ay sidoo kale dalbanayaan in golaha guurtida oo loo gudbinaya uu ka baaraan dego oo aanu si fudud xeerkaasi aanu u meel marin qolyaha iyagu taageersanaa waxay ku niyadsan yihiin oo ay sheegayaan in ay ku faraxsan yihiin in meelo badan oo ka mida lagu saleeyey diinta islaamka. dowladda Soomaaliya ayaa maanta soo bandhigtay xeerka warbaahinta oo uu ansixiyay madaxweynaha Soomaaliya 30 Juulaay kadib markii ay ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka horaantii sanadkan. wasiirka warfaafinta Maxamed Cabdi Maareeye ayaa ku macneeyay xeerkan in qaladaad marar dhaco oo aan loo hayn meel loo cuskado uu sharci u noqonayo. waa sharci xeerinaya ama sharciyeynaya xornimada saxaafadda xornimada xog helidda wariyayaasha iyo warbaahinta inay xog helaan xogta dowladda sida dastuurku sheegayo ay xaq u leeyihiin inay helaan wax oo maanta marmarka qaarkood qaladaad ah oo dhaca isla markaana sharci toos loo cuskado aanu jirin maanta kadib sharci u noqon doona wey. haddaba si aan wax badan ugu ogaano qodobada sharciga oo ay ururada saxafiyiinta Soomaaliyeed ay aqoonsan yihiin waxaa qadka toos magaalada Muqdisho ugu jira Cabdalla Axmed Muumin oo ah xogayaha guud ee ururka SJS. Cabdalla soo dhawow, waa maxay qodobada idinka sharcigan aad qoonsateen oo ku jira oo aad u aragtaan in dhibaato ay yihiin? walaal Cismaan waa mahadsan tahay. xeerkan kaliya ma ahan xadgudub ka dhana xorriyadda hadalka iyo tan saxaafadda, sidoo kale wuxuu khatar ku yahay nolosha saxafiyiinta Soomaaliyeed. haddii aad fiiriso qodobka 18aad xeerka wuxuu tilmaamayaa in diiwaan lagu ururin doono wasaaradda warfaafintu ay leedahay magacyada saxafiyiinta madaxa bannaan ee dalka ka shaqeeya, taas oo aan shaki weyn ka qabno halis weynna gelinaysa. xeerka wuxuu kala soo jeedinayaa Cismaan faafreeb hordhaca in lagu samayn karo wararka aynu dowladdu jeclaysan ee saxaafadda Soomaaliyeed ay tabinayso. wuxuu kaloo keenayaa xeerkan in la sameeyo guddi ay saxaafadda loogu talagalay in shaqadeeda lagu caburiyo oo wasaaradda warfaafinta hoos imaan doona. arrimahaas oo dhan markaad eegto iyo lacagaha la soo rogayo ee ku saabsan diiwaangelinta iyo ganaaxyada waxay u muuqataa in dowladda Soomaaliyeed gaar ahaan wasaaraddeeda warfaafintu ay doonayso xeerkan inay uga dhigto dabar ay ku caburiso xorriyadda hadalka ee dalka Soomaaliya. waa tahay laakiin xeerkan ilaa 2013 waxba laga bedelay mar walbana waad ka biyadiidanay ururada saxafiyiinta way diidanay marka maadaama mar walba la bedelayo oo waxa ay yihiin wadankiina uu dhismayo maxay ku diidantiin idinka in sharci la sameeyo la dhaqaaqo? in sharci la sameeyo horta waa lama diidanin, taas waa muhiim inaan hoosta ka xariiqo. annagaa mar walba u ololeynayna in sharcigan la hagaajiyo oo standard lamida kan caalamka uu noqdo oo wejiga Soomaaliya ay leedahay maanta uu ka turjumo. laakiin nasiib darro waxay muuqataa in la doonayo saxaafadda xorta ah ee dalkan ka howlgasha in maaragtay la caburiyo. weliba Cismaan waxaad ogaataa xilli doorasho la gelaya, dalka doorasho u socdaa, marka dowladdu waxay ku talagashay sida muuqata inay xirto warbaahinta madaxa bannaan oo ay ololaha doorashada ka hor soo gabagabayso shaqadii saxaafadda madaxa bannaanad ee xorta ah. waxaan ka walacsannahay haddii sidan wax u sii socdaan in saxaafadda xorta ay dalkan ka sii shaqayn karto. aad baan uga walacsannahay xaaladda dalka uu ku sii socdo gaar ahaan xorriyadda hadalka. waxaan diidannahay in maaragtay caburin iyo jujuub lagu soo rogo, laakiin ma diidanin in xeer la sameeyo. xeerku laakiin waa inuu ka turjumaa oo uu adeegaa xorriyadda hadalka, wariyaashuna waa inuu difaacaa. waa tahay Cabdalla, dowladda meel ay ku sheegtay ma jirto inay wax jajuubaysa ama ay wax ciqaabaysa, laakiin wasiirka wuxuu sheegay warfaafinta Soomaaliya in xeerkan qodobo mararka qaar sharciyo dhaca oo la leeyahay wax loo cuskado inuu daawo u yahay. taas ma diidan tahay? marka fiiriso wax jajuubaya waxaa ku cadday qodobka 11aad iyo kan 13aad iyo kan 14aad. qodobadaas oo dhan haddaa fiiriso waxaa ku cad in dowladdu ay jujuubayso xorriyadda hadalka. hadalka wasiirka anigu ma aaminsan inuu sax yahay, mana aaminsan in sharcigan uu yahay kii saxda ahaa ee u baahnaayeen saxaafadda Soomaaliyeed. haddii ay daacad ka tahay oo sidaas ay rabaan, waxaan aaminsannahay inay nala fariisan lahaayeen oo ay ogolaan lahaayeen talooyinkii qoraalka ah ee aan u gudbinay ee aan nidhi qodobada qaldan ha lagu saxo. way diideen sida muuqata. waan gartay. ugu dambeyntii xalka muxuu yahay adoo soo koobaya? xalka wuxuu yahay wuu cad yahay. sharcigan wuxuu ka hor imaanayaa dastuurka dalka. wax kastoo dastuurka dalka ka hor imaanaya waa waxba kama jiraan. waa in dib loogu laabtaa, waa in laga galaa wadatashi, qodobada qaldan waa in la saxaa. waa mahadsan tahay. kaasi wuxuu ahaa Cabdalla Axmed Muumin, guddoomiyaha ururka SJ. markana wararka cayaaraha.
kabtanka Manchester United Harry Maguire ayaa laga reebay xulka England ee bisha dambe la kulmaya Iceland iyo Denmark markii la xukumay taas oo ka dambeysay khilaaf dagaal uu ku galay jasiirad ku taala waddanka Greega. Maguire waxaa lagu xukumay 21 bilood oo uusan xabsi galayn kadib markii lagu helay inuu galay dagaal, inuu diiday in la xiro iyo in uu isku dayay bixin laaluush. Wuxuu sheegay in uu racfaan intaas oo dhan ka qaadan doono. weeraryahanka Barcelona Messi ayaa dalbaday in uu ka tago garoonka naadigiisa. ciyaartoygan reer Argentina waxa uu sheegay naadiga in uu doonayo in uu ku dhaqmo xaqa heshiiskiisa siinaya taas oo u ogolaanaysa inuu si xor ah oo degdeg ah uga bixi karo, balse waxa ay gaaraysaa arrintiisa maxkamad maadaama ay Barcelona aaminsan tahay in xaqa uu u leeyahay inuu iska baxo ay waqtigeedii dhamaaday. ciyaartoyga ciyaaraha fudud Usain Bolt ayaa laga helay viruska corona. ninkan 8 jeer noqday horyaalka Olombikada oo aan wax calaamad ah laga arag. waxa uu u dabaaldegay dhalashadiisii 34aad xaflad weyn oo toddobaadkii hore ku qabtay Jamaica. karantiil ayuu isgeliyay kadib markii sabtigii Paris uu isku sameeyay. dad badan ayaa weli guryaha ka shaqaynaya. qaar ka mid ah shirkadaha waxa ay hadda ka dhigeen taasi joogto. haddaba maxay taasi uga dhigan tahay dhismooyinka xafiisyada? wariyaha BBC-da Samira Hussein ayaa eegaysa saameynta uu safmarka ku yeeshay xafiisyada ganacsiga ee New York. Hudson Yard waa mid ka mid ah xaafadaha aadka loo hormariyay ee New York, balse xafiisyada ku yaala waxaa saameyn weyn ku yeeshay oo ay la maran yihiin fayraska corona aawadiis. Philip Visser ayaa aaminsan in teknolojiyadda casriga ah ee dhismayaashu ay soo jiidan doonto dadka. calaamadaha ayaa ku hagaya. waxaa jirta kaamara cabiraysa heerkulkaaga, uma baahnid inaad isdhibtid. kadibna waxaa jirta albaabadan kuu ogolaanaya inaad ka gudubto oo weliba xitaa wiish kugu yeeraya si aad toos ugu sii socoto. markay dadku ku soo laabtaan xafiisyadan uma baahnaan doonaan inay meel naba taabtaan. arrintu waa mid caafimaad hadda oo ma aha dhibaato ku aadan guryaha. wax kasta oo karaankeenna ah waynu samaynay si aan u dejinno inay soo noqdaan oo ay bilaabaan. marka dadka degan dhammaan waxaan ka soo ururinay ijaarka. inkastoo dadka tirada yar ee ijaartay ay bixinayaan lacagta, shirkadaha guryaha kireeya ayaa ka walwal qaba in dad badan ay shaqo la'aanta haysa aawadood aysan kiraysan kari doonin. marka la eego ganacsiyada u baahan xafiisyada ayay weli u kiraysan yihiin dhismayaashan qaar. dukaankan lagu iibiyo sigaarka maamulihiisa wuxuu leeyahay ganacsigiisu waxaa ku yimid hoos u dhac gaaraya 75% maadaama ay dad badan guryahooda ka soo shaqaynayaan. xafiisyadu way marnaayeen marka xaaladdu waxay ahayd mid la yaab leh. anigoo ixtiraamaya ganacsiyada iskama soo geli kartid. wax dhaqdhaqaaq ah ma jiro. maqaayadan ku dheggan sidoo kale waxay sheegayaan intay shaqaalaha xafiisyada ay guryahooda ka soo shaqaynayaan macaamiil ma helaan. xilliga qadada way buuxi jirtay maqaayadaydu. 80% xafiisyada ayaan ku tiirsanayn. 20% dalxiisayaasha. macaamiisheena 75% waan luminay. Manhattan daafaheeda sheekooyinka noocan ah way ku badan yihiin. New York ayaa ah magaalo ay ku yaalaan xafiisyada ugu badan caalamka. haddii xafiisyadu sidan u sii marnaadaan, caasimadda dhaqaalaha ee Mareykanka way ku adkaan doontaa inay soo kabsato. ugu dambeyntiina caawa waxaan idinkaga tegayaa eeyo sanad kasta 10 ruux badbaadiya. waxa ay ka tirsan yihiin iskuulka eeyaha ee dadka badbaadiya. hal sano oo tababar ah ayaa eeyahan la marsiiyaa ka hor inta aysan bilaabin hawshooda xeebta. waxa ay biyaha badda ka soo riixaan oo ay xeebta keenaan dadka biyaha ku qarqami rabaa oo farakanaxa marka ay dabaalanayaan. xilliga uu jiro fayraska corona aad ayay muhiim u noqdeen maadaama isu dhawaashaha dadka ay meesha ka saarayso oo aysan dadka isu dhawaanaynin. xusuusnaa wararkii ugu dambeeyay ee BBC Somali waxaad ka heli kartaan bbc.com/somali. halkaas si toos ah aad ugala socon doontaan wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan COVID-19 iyo wararka kale ee caalamka. meel kasta aad joogtaan, Instagram-keena iyo Twitter-keena ayaad kala socon kartaan. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena caawa iyo caalamka. waad ku mahadsantihiin daawashadiina. intaan mar kale dib u kulmi doono aniga iyo dhammaan asxaabta ka shaqaysa barnaamijkan waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Thank you.